madaxweynaha Soomaaliland Muuse Biixi Cabdi ayaa habeenkii xalay waxa uu shir iskugu yeeray madaxda asxaabta siyaasadda ee Soomaaliland madaxdii soo xukuntay Soomaaliland 27 sano ee Soomaaliland jirtay iyo shir gudoonka baarlamaanka Soomaaliland iyo siyaasiyiinta magaca ku dhaxlay Soomaaliland gudaheega kulankaasi ayaa lagaga arrinsanayay sida ay saaka warbaahinta u sheegeen mas'uuliyiintaasi oo shir jira si wada jir ah ugu qabtay Hargeysa xaaladda dagaal ee ka soo cusboonaatay deegaanka Tukaraq oo isku fadhiyaan ciidamada Soomaaliland iyo kuwa Puntland iyo colaadda labada beelood ku dhex martay deegaanka Ceelafayn waxaana shirkaasi jiraayid ugu horeyn ka hadlay gudoomiyaha xisbiga mucaaradka UCID injineer Faysal Cali Waraabe gudoomiyaha ku meel gaarka ee xisbiga mucaaradka wadani Cabdiqaadir Jirde iyo gudoomiye ku xigeenka labaad ee xisbiga talada haya Kulmiye Axmed Cabdi Dheere dagaalkan socda maaha dagaal ay wado reer Garowe ودجال أي صوماليا وداوي هنادي أنا وباقية السماد هريج جروي وإن فاكت أنا آدي وش على هاي نبض كتلية تنت كتلية إن أنا الاستعمال بعليها بحوية فرماتشو يوم الكيس حمر وحيكدك تن مدانتي سيدي سومالنا لو بابين لها إلهي سبحانه وتعالى حبابي دجال كان دجال قبيل معه dadka qaar ayaan loogu sawrin dagaal qabiil u yahay dagaal qabiil maaha Tukaraq iyo xuduudeena waxa difaacaya dadkii deegaanka u dhashay deegaanka dadkii lahaa ayaa u diyaar oo difaacaya inaguna ku taakuleynayna reer Laas Caanood baa u dagaalamay difaacaya reer Tukaraq baa u dagaalamaya reer Xudun baa u dagaalamaya reer Taleex baa u dagaalamaya reer Buuhood baa u dagaalamaya marka dagaal laba qabiil ah maaha شقاقة كتير عيلة ميل مناسب مرسا عاد بي سووا حولان فكي لبدا بيروت خصوص شيء يقول مدي يوسير في داخلية دمانتو ميل مناسب مرسا ما توح شقاقة وتتم بجرتو نبدي يوسيد الله صحيح لها هي غير Soomaaliland حكومة معارض يمحافظ waxyaguna geestooda halkaasi ka hadlay madaxweyne ku xigeenka Soomaaliland Cabdiraxmaan Cabdilaahi Ismaaciil Saylici madaxweyne ku xigeenadii hore ee Soomaaliland Axmed Yuusuf Yaasiin iyo Cabdiraxmaan aw Cali Faarax inaan loo dul qaadan karin lana ogolaan karin in fidmo sii socota oo dad walaalaha ehelka dhasheeda ay ku sii dhintaan aan la dul qaadan karin maantana maartay ciidamadii qaranka iyo ciidamadii nabadgelyada iyo wasiirka arrimaha gudaha iyo cidii soo raacisay ay joogan maanta hadii la isku qabtay borders la isku qabtay xuduud Djibouti la isku qabsan Ethiopia la isku qabsan Kenya la isku qabsan Soomaaliland waxay ku taagan tahay calaamadaha bariga la calaamadiye ay ku qoton tahay hore waa nooga Soomaaliland inay inkireen oo Soomaaliland jiritaankeeda inkirsan yihiin laakiin in colaadda ka wada midaysan yihiin bay maanta in la duujiye annaguna waxaan leenahay idin fahamnay معارض محافظ بوا iyo xukuumadda waanu ka midaysanahay difaaca qarannimada Soomaaliland Mukhtar Ismaaciil Ali telefishinka Universal Hargeysa